بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام بإذن الله وحاربا مانت إنا وحير كتابته موضوع دلك إلمها أما عقابته أما مهبونتها قفك مربقة معلنك هذا والدك هذا مهبونتها إنه دل وحكو تربييه أما عقابته دلك إلمها محي أجيسته دامج إنتلك أي جارسيسها waliba dhaawac aan ilaa iyo mustaqbalkiisa ka hareenin. Waxa la yiri dilku culimo tarbiya waxay dhaheen dilku wuxuu ilmaha ka qaadaa karaamada. Yacni ilmihi midalan iskuulka baa lagu dugsiga baa lagu dilayaa markii inta soo arday joogto oo ilmihi la dilayo oo la garaacayo uu arkay inta soo qof oo daawanaysa macallinkii bahdilayo uu garaacayo wuxuu khasirayaa ama waayaya karaamadiisii. guriga baa lagu garaacaya guriga dad baa jooga qaraaba joogta maybe yani walaalihiis ka yarar baa jooga ama yani ilmihi wuxuu dareemayaa inaan la ixtiraamaynin. qofka bini aadanka hadduu ixtiraamka waayo in la ixtiraamay waayo oo karaamadiisa waayana wuxuu khasaaraa maartay ma noqonayo ilmo yani qof markuu karaamadiisa haysto wax badan buu maartay uu noloshiisa u ogolaanaynin. waa qof yani karaamaysan oo maartay mu'assis mukarram ah oo karaamadiisa ilaashanaya wax badan dhahaya may ani waxa iguma haboona ma sameyn karo. ilmaha la soo dilo oo yaraantiisa la ciqaabo markuu weynaado wuxuu noqdaa qof markasta khiyaano ku nool oo markasta baqdin ku nool oo markasta istawamarin ku nool oo markasta qofku markuu karaamadiisa haysto walaalayaal karaamadu wax badan bay qofka ka hor istaagtaa. Masalan dadka hadda musuqmaasuqyada adduunka ka wada dadka maartay wadamada wadankiisa qofku maartay ixtiraam hadduu ixtiraam iyo karaamo haysto wadankiisa iyo noloshiisa iyo qofnimadiisa iyo kulli midna uma ogola inay wax soo gaaraan. laakiin haddii kale qofkan weligiisba qish iyo istawamarin buu ku noolaanaya meesha qishkaas ay istawamarintaas kasoo raacdana waa yaraantiisii. masalan ilmaha tukaa la dhahaya salaada baa lagu garaacaya wayse la-aan buu ku tukanaya waa qish. macallinkii maartay quraanka uu ku garaacaya ilaa quraanku uu akhrinaya uu dhiganaya laakiin maalinku dugsiga ka baxo kitaabka uu tuuraya masaajidka ilmihi laga soo xayrinaya. yani ilmuhu markuu yaraabo wuxuu ku korayaa inaan la ixtiraamin oo karaamadiisa maartay laga qaado markuu weynaado marka halkay karaamo ka helaya wixii maartay uu la koro ilmuhuna markasta wuxuu ku koro ee joogu yaraantiisa ku koro ayuu maartay markuu weynaado maartay la falgelaya oo ka turjumaya. si kastoo qofku wax u barto si kastoo maartay qofku u horumariyo naftiisa waxa jirta wax yaraantiisii soo raacay oo haysta oo noloshiisa maartay markas cawaa'iq ku noqonaya. marka qofka murabbiga maxaa looga baahan yahay? qofka murabbiga waxa looga baahan ilmaha inuu u sabro mid ogaada ilmahan suluuga uu ku jiro ama marxaladaha uu marayo ma aha marxalada weligiis la soconaya madal xayaa waa marxalada uu ka gudbayo. masalan ilmaha 5 sano jira soo u dhaqmayo maartay dhaqankiisa maalintu 6 sano 7 sano gaar lama soconayo uu ka haraya. marka maxaa loo baahan yahay in intaas yar u dul qaadatid inaad sabir tustid teeda kale ilmaha hadaa qaraacdid oo maartay ay ihaanaysid oo caydid oo maartay dhibaataysid qodwo uma noqon kartid. qofna ma jecla adiga hadda qof weyn markaa tahay qof maartay ku arkay inaad waxba ahayn oo markaa hadashid ku aamusinaya oo maartay ku dhibaateynaya qodwo kama dhiganaysid kuma dayanaysid waad nacaysaa waad nabcaysanaysaa. ilmahaas markay maartay hadhow waa aragteen ilmo badan oo gurigii ka cararaya oo tamarud sameynaya oo caasi waalidkii ku noqonaya waxaasoo dhan waxay kala soo bilaabatay yaraantiisii. marka si aan uga badbaadina ilmaheena inay berri tamarud sameeyaan oo maartay naftooda maartay dhibaato u geystaan oo anaga caasi nagu noqdaan oo wadankooda khiyaamaan waxay ka bilaabanaysaa inaan hadda inta yaryar yihiin toosino oo jacayl ku tarbiyeyno oo ixtiraamno oo maartay tusno inuu qof qiimo leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimeeyey. ilaahay waa qofkan qiimeeyey qofna xaq uma laha inuu ka qaado qiimeyntiisa. marka waxa la sameeyaa ilmaha waa loo sabraya. ilmahan waxa ogaataa marxaladan uu ku jiro horta koow inuu ka gudbiyo. taani shay ilmaha waa inaad wax u sheegtid ilmaha maartay inaad la fariisatid oo dhahdid waa ku jeclahay ilmahaygii baa tahay laakiin waxaan aad sameynaysid ma jecli iska daa. markii ilmihii aad ka codsatid oo dhahdid waa ku jeclahay oo habsiisid oo dhunkatid oo dhahdid aabe maartay salaada inaad tukatid baan jeclahay. marka ilmaha maartay salaada la barayo waxa la dhahaa ilmihii oo ciyaaraya oo loo yeeraya waxa la dhahaa hay ma sha Allah waa ciyaaraysaa 5 daqiiqo kadib waxa isu diyaarinaysaa salaada 5 daqiiqo kadib insha Allah waxa akhrisanaysaa buugaagtaada soo qaadanaysaa oo akhrisanaysaa. yani ilmihii si ixtiraam la uga codsanaysaa
laakiin marka dheed istaag tuko waa lagu cadaabaya xitaa ilmaha waxaa laga cabsi gelinaya ilaahay subxaana watacaala. ilaahay waa qafuuru raxiim, ilaahay subxaana watacaala waa raxmaan waa raxiim. yacni markii ilmaha ilaahay loo dhaweyn lahaa oo naxariistiisa looga sheekeyn lahaa ba waxaa la dhahaya salaada haddaad tukan weydo waa lagu dilaya, qur-aanka haddaad baran weydo waa lagu dilaya. yacni laakiin ilmaha markaa qur-aanka jeclaysiisid oo dhehid aayad kasta akhrinaysa ajar baa ka helaysaa, jannada maaragtay qof kasta meesha qur-aanka ka gaaray maaragtay mansiladiisa iyo maaragtay noqonaya. يعني سبحان الله مركا قولك سا قرآنك وجعليس إلهي وجعلانا يا مارتي وجعل. لكن مركا دهديد إلهي وكو عذابي أديقنا عقابتيد أديقنا وكا عرريا مارتي إلهي سبحانه وتعالى أنا فكر خلدن با علمه كسيسي. إلهي علمها جعليسية، إلهي إنه رحمن يهي، إنه رحيم يهي، إنه نحريس بدن يهي، إنه قفور رحيم يهي، إنه علمها مارتي يركا سيدي سنة جرى أو قان قارن محا عذاب وشك شيكسا ما بقارن. يعني markuu weynaado adheedid aaba dembi haddaa gashay saas waaye. ilaahi subxana watacaala maaragtay saas uu jecel yahay, ilahay addoommadiisa maaragtay yani saas ugu sheegtid. laakiin ilmihiyo 7 sano 8 sano jira wallaahi markay kaaga sheekeeyaan dadka qaar rucbiga ay ka qaadeen cadaabta ilaa waagi yaraayeen oo dhan markay arkaan maxaa dira lashadaya cadaabta ka sheekeynaysa. ilmihi waxaa dhahay ilahi subxana watacaala uu ku cadaabaya haddaa been sheegtid, salaada haddaa tukan weydo ilahi uu ku cadaabaya, qur-aanka haddaa baran weydo ilahi uu ku cadaabaya. ilmihii marka way sasayaan habeen barka waxay ku reeganeen iyagoo dab ku dhacaya. marka looma baahna in ilmaha rucbi gelin, ilmaha in ilaahay u dhawaano, jacaylkiisa maartay u sheegno, ilaahay inuu maartay hooyada anoo ah buu ilaahay iiga kaa naxariis badan yahay, anoo aabaha ah buu ilaahay iiga kaa naxariis badan yahay. ilaahay subxaana watacaala wuxuu jecel yahay sidaas. ilaahay subxaana watacaala yani ina ilaahay ilmaha u dhawaano jeclaysiino, ina ilmahana aanaa dilin, ilmaha yaanaa dilin, ilmaha yaan la ciqaabin, ilmaha ha loo dulqaato, ilmaha lala sheekaysto, ilmaha hala dhegeysto, ilmaha loo sheego in la jecel yahay, ilmaha markasta hab hala siiyo, ilmuhu ha dareemo inuu yahay marquub, ilmo la doonayo oo la jecel yahay oo loo naxariisanayo. ku dhaha ilmahaga waa ku jeclahay, ku dhaha waa kugu faanaya, ku dhaha ilaahi subxana watacaala ikaa siiyey baa mahad iskale, ku dhaha maalintan ku dhala waxay maalinta ugu farxadda badneed adduunkeyga, ku dhaha ilmaha waxaan kaa codsanayaa inaad salaada tukatid, ku dhaha kaale ila tuko ilaahi subxaana watacaala kaale aan wada barine. يعني سبحان الله ilma markaa labiska iyo cadayga iyo quruxda u sheegaysa ku dheh in allaha jamiilun yuhibbul jamaal. ilmaha noloshiisa ku abuur oo ku qarsi ilaahi subxaana watacaala jacaylkiisa. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qudwadeennii ah. nabigeena wuxuu jeclaa siwaaga cadayga, nabigeena maaragtay wuxuu jeclaa carafta. yani subxaan allah kaale aan wada tukane, kaale sunnada nebiga, kaale kabaha aan midigta maaragtay kabta midigta ka bilowne. yani subxaan allah waxaan haysanaa malyanis ah ilmaheena diinteena iyo maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ilmaha ilaahay subxana watacaala aan ku jeclaysiin karno, anagana ilmaheena aan ku maaragtay isku jeclaysiin karno, aan u tarbiyeysan karno baa haysanaa. ma ahan marka inaan raadino meel adag oo ciqaab ah oo dil ah oo anaga neerfoos isku kicino oo maaragtay madax xanuun isku ridno oo ilmihii canaanano oo ilmihii maaragtay cadownimo u muujino. marka qofka murabbiga wax ma ciqaabo, waxbuu toosiyaa, wax ma kharibo, waxbuu hagaajiyaa. ilmaha ma nabcaysiiyo maaragtay wanaaga iyo salaada iyo khayrka, bal ugu jeclaysiiyaa. marka ilaahi subxana watacaala waxaan ka baryaynaa awlaadda isagaana siiyey inuu birigooda nagu arsuqo, anagana aan ku dadaalno, aan akhrino tarbiyadooda. sidii maaragtay adduunka maanta wax kasta way qoran tahay, wax kasta way duuban tahay, waxa kaa xigta inaa maaragtay akhridid ama dhegaysatid. ilaahi subxana watacaala waxaa inoo weydiinaya dhammaantan inuu naga raali noqdo. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.